It's too late. Imsaad u soo joogtay dad guuleysanaya, dad hadafyadii lahaayeen gaaraya, dad noloshay ku riyoonayeen hadda ku nool, dad wixii ay cidiga ku hayeen hadda gacanta ku haysta. Ba markaagii imsaad dad garab taagneed, imsaad dad hambaliyeysay, imsaad dad boogtoogu ahayd guulahooga, imsaad dad markaati ka ahayd korukacooga, imsaad arkaysaa asxaabtaadii, akhyaartaadii, qoyskaagii iyo dadkii aad nolosha wadaagayseen oo himilooyinkeedii iyo hadafyadoodii gaadhay. Imsaad arkaysaa dad la nool nolosha ay ku riyoon jireen, imsaad arkaysaa dad meeshay xariiqdeen soo taabtay. Waa xilligaagii, waa markaagii, waa xilligii la dareemi lahaa ahaanshahaaga, waa xilligii ahayd inaad adduunyada u sharaxdo dhadhanka jiritaankaaga, waa xilligii dunida iyo dadka ku nooliba ay ka faa'iidi lahaayeen jiritaankaaga iyo noloshaada iyo neefsigaaga. waa markaagii, waa xilligii aad ku raaxaysan lahayd ciddaad tahay, waa xilligii ay ahayd in weynida kugu jirta ay adduunyada ku nuursato, waa xilligii ay ahayd inaad ku raaxaysato noloshaad ku jirto, waa xilligii aad ku xoroobi lahayd dibisku xajinta, waa markii aad ku xoroobi lahayd shikiga, waa markii aad ku xoroobi lahayd sawirka khaldaneed naftaada ka haysato, waa markii aad ku xoroobi lahayd dhegaysiga dadkaan jeclayn ahdaaftaada, waa xilligii aad ku xoroobi lahayd degsiinta dadka hanjabintaada xirfad dheeraada u leh, waa xilligii aad ku xoroobi lahayd iska dhex daawashada dadka kale indhahooga iyo iska aaminidda fikirka dadka kale ka haystaan, waa xilligii aad u qaadan lahayd muraayadaada ee adigu is eegi lahayd isla adiga, waa xilligii ay soo bixi lahayd weynidaada iyo ahaanshahaagu, waa xilligii ay soo bixi lahayd fariinta ilaahay ku dhex dhigtay tahay inaad dunyada la wadaagto. waa markaagii dib ha isku xajin, waxba dib ha u dhigan.